Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Horumar maxaa keena horumarka? Dal muxuu ku horumaraa? Dadse maxay ku horumaraan? Qodobkaas ayaynu maanta ka hadli doonaa. Soo dhowaada dhammaantiin. Horumarka waxaa keena sababo kala duwan. Dal walbana dadkiisu waxay ku keenaan sifo iyaga u gaara, balse waxaa jira mabda' laga siman yahay oo dal walba iyo dadkiisu horumar ku gaadhi karaan. Dal walba shacabkiisa ayaa dhista oo horumar gaadhsiiya, balse ma jiraan dad intay ku yimaadaan ku dhisaya dalkaaga. Horumarka dalka waxaa keena laba midkood, shacabka amaba madaxda. Haddii madaxdu tahay dad horumarka jecel oo wadaniyiin ah, waxay awoodaan inay dalka u dhisaan una sameeyaan ilo dhaqaale oo waaweyn, sida inay u dhisaan warshado, beero iyo suuqyo ganacsi, kuwaasoo dadkana shaqo abuur u noqon kara. Haddii uu shacabku yahay kuwo horumarka jecel oo qof walba wax ku soo kordhiya dalka, waxa uu noqon karaa dalkaasi mid horumarsan, iyagaana ka dhigi kara dowladda tu horumarsan. Marka uu yeesho dalku ilo dhaqaale oo ku filan, kana maarmo waxyaabaha ay bixiyaan burburiyaashu waa reer galbeedka, waxa uu samaysan karaa waxyaabo badan sida inuu samaysto ciidan awood leh, waxbarasho tayo leh, caafimaad heer sare ah, iyo waxyaabo la mid ah. Waxa uu horumar gaadhi karaa dalku marka uu wax la soo baxo, dadkiisuna wax bartaan, kana maarmo hay'adaha sharafta iyo magaca ka dila dadka iyo dalkaba. Haddaba muwaadin waxaad ogaataa intaynaan wax la soo bixin amaba aynan hal abuur yeelan inaynan horumar gaadhi doonin, halka aynu maanta joognana ka dhaqaaqi doonin, hay'adaha reer galbeedkuna sida aynoo dhex joogi doonaan. Intaynu barnaamij la mid ah ku kulmayno.